hal anaga shuruud ma naga jirto oo aan horena u sheegnay waraaqna ku soo saarnay oo ah hay'adaha ku sugan Hargeysa maamulka la shaqeysta iyo wax ka soo jeeda maamulka Soomaaliland ee jooga Hargeysa inaysan anaga gargaarna soo gaarsiin karaynin kulanti wanaagsan ku soo dhawaada la kulanka Kilo Media waxaan nasiib u yeelanay inaan hoygiisa ku booqano garaad Mukhtaar garaad Buraale garaad soo dhawow واسد حالك مقالة لاسعانود مانت بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كيلو ميديا iyo kooxda iyo internet dhageysanaysa ama muuqaalkan daawanaysa waan salaamaynaa marka hore assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka xiga hadaan su'aashaada ku soo dhawaado iyo xaalka maanta laascaanood kolleyda waa nala joogteen dagaalkii maanta noo saagan ugu bilaabmay alaasaydii madaafiic badan oo runtii magaalada lagu soo tuurayna way jirtay oo aad iyo aad uga badnayd kii shalay dhacayay khasaaraha soo gaaray magaalada kole waa in burbur badan iyo daaro badan oo dumay ay jiraan dhimasho iyo dhaawacna ay leedahay laakiin se warbixintii ugu dambeysay oo inta badan la soo diro bacda maghrib ilaa cisho inta u dhaxaysa lana soo gaarsiiyo wali nama soo gaarin marka hadda tira cayiman oo suuxo kale waa maqlaya hal qof oo dhintay laakiin se tirada saxda ah hadda idin lama wadaagi karayno ilaa warbixintaasi soo gaadho laakiin se kole xaqiiqiyan madaafiicda maanta soo dhacaysay mid aad uga badan bay ahayd tii maalmihii hore soo dhacaysay oon ka qiyaasi qaadan karno in dhaawaca magaalada loo geystay hadday noqoto guryo iyo daaro iyo wadooyinba inay aad uga fara badan tahay garaad kulan ay xalay yeesheen qaramada midoobay waxay aad uga hadleen xasuuqa ka socda magaalada Laascaanood iyo dagaalka u dhaxeeya shacabka iyo militariga Soomaaliland duleedka buraleyda magaalada Laascaanood sidoo aragtaa wax xiriiraysa badin la soo sameeyeen waa su'aal wacan runtii aad baan u soo dhaweynay baaqaas iyo shirka ama kulankaas ay yeesheen qaramada midoobay iyo tii ka soo baxdayba safiirkeena u fadhiya safiirka dowladda federaalka Soomaaliyeed u fadhiya qaramada midoobay oo dhamaantood runtii uga hadlay sida xaqa ee maanta xadaarada taagan Laascaanood inay tahay ummad lagu gumaadayo inay tahay wax ka soo horjeeda aadanimada inay tahay inay hoos ka xariiqeen oo ay ku cadahay wixii musabixi iyo maamulkiisu ay lagu sheegi jireen oo ahayd meeshan argagixisan la dagaalamayna inaysan ka jirin ee wax maanta meesha yaala ay tahay mid la isku gumaadayo oo maamul sheeganaya 30 sano inay maamul lahaayeen oo lagu kaalmeyn jiray dhaqaale ciidan iyo qalab iyo hubba maanta ay u adeegsanayaan bulshadii shacabkii Soomaaliyeed ee ku noolaa magaalada Laascaanood halkaas ay waxyeello ku gaarsiinayaan ama ku saameynayaan dilista iyo gumaadka dumarka iyo caruurtu ha u badnaadaanbe iyo dadka yarmaatada ah maanta runtii barakiciyay dad aad fara badan oo 200,000 qof ka badan lagu qiyaasay oo ku baahsan duleedyada magaalada Laascaanood iyo tuulooyinkeeda hay'ado badan runtii hadda qaarkood ay gargaar nala soo gaareen sida ICRC-da oo hadda yar laftigeeda ku sugan Kalabayd meelaha kalena insha Allah ilaa bari laasaadna oo kici doonta si ay u gaarsiiyaan kaalmo deeqeed iyo gargaar isla markaana ay u dhuur galaan tacdiyaadka dadkaas ka soo gaaray waxyeelada tan uu ka sameeyay musabix iyo maamulkiisu garaad waxa jirtay hay'adda Laanqeyrta Cas ICRC inay soo codsatay ama ay dalbatay in magangeliyo buuxda iyo damaanad la siiyo shaqaalaheeda si ay u arkaan xaqiiqada ka jirta guud ahaan magaalada gobolka Sool iyo magaalada Laascaanood iyo meelaha ay dadka u qaxeen taas idinka dhankiina soo aragtaan CC ahaan hadday tahay Laanqeyrta Cas hay'adda Laanqeyrta Cas iyo hadday tahay hay'adaha kale caalamka ahba intaba soo dhaweynaynaa gargaarka iyo gurmadka loogu imanaya waajib baan naga saaran inaan culays ka saarno nabadgelyadooda iyo amnigooda iyo wixii kale aan u fudeyn karno inaan u fudeydino hal anaga shuruud ma naga jirto oo aan horena u sheegnay waraaqna ku soo saarnay oo ah hay'adaha ku sugan Hargeysa maamulka la shaqeysta iyo wax ka soo jeeda maamulka Soomaaliland ee jooga Hargeysa inaysan anaga gargaarna soo gaarsiin karaynin kana doonaynin ciddii noo imanaysa sida hadaba Laanqeyrta ay sameysay ha soo marto xafiisyadooda kale iyo shaqaalahooda kale ee Soomaaliya inteeda kale ama Kenya iyo wadamada kale dhow ka jooga ha noo soo maraan laakiin xafiis ku yaala Hargeysa in la noo soo maro ama kaalmo naga soo gaadho
waxay halis ku tahay inay badbaadadooda ku aadan mujtamacii maanta inaysan raali ka ahayn cid ka soo jeeda Hargeysa xafiis iyo maamul midnaba inuusan maanta dagaalantan soo gaadhin inta naga joogtana ay tahay intan ciidamadeena gumaadaya maantana aan ku talo jirno si la iska saar lahaa wada hadalkeeda marka taasna waa boorinayna in hay'adihii kale nagu soo socdaana ay sida laanqeyrta ay sameysay oo nooga soo dirtay shaqaalahoodii xafiiska xamar iyo Nairobi ay iyaguna u soo maareeyaan ama noogu soo maraan annagana mas'uuliyadda naga saaran amnigooda iyo taxadarkooda iyo fudaydinta meelaha ay tagayaan ay u baahan yihiin kaalmadayadana diyaar baan loo nahay insha Allah garaad gabagabadii fariintaada ugu dambeysay ee bulshooyinka Soomaaliyeed la wadaagayso maxay tahay gabagab ahaan runtii ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan waxaan uga mahadcelinaynaa kaalmadii iyo gargaarkii iyo ducooyinkii ay nala soo wadaageen iyo taageerada ay muujiyeen meel kasta ka joogaan adduunyada inay nagu garab taagan yihiin nala daran yihiin saad ka warhaysid banaanbaxyo ka dhacay Ingiriiska London kuwa kale sidaasoo kale la isugu yimid Toronto Canada kuwa kale la isugu yimid meelo kala duwan oo ku yaala Mareykanka kuwa kale hadda la qabanqaabinaya bari ilaa saadama inay ka dhacaan caasimadda Mareykanka ee Washington DC Soomaaliya iyo meelo badan oo runtii saasoo kale kala duwan oo iyana kaalmo iyo taageero laga muujiyay oo fara badan baa jirtay marka runtii waan ku faraxsanahay aadna ugu soo dhaweynaynaa taageerada iyo garab istaaga ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay nagu garab taagan yihiin oo muujinaysa in anagu maanta aanan dulmi ku socon qof kasta oo muslimna waxa waajib ku saaran inuu walaalkii ka qabto ugu hiliyo haddii dulmi sameeyay dulmiga gacanta ka qabto haddii la dulmiyo inuu gargaaro marka haddii aan Soomaali noodan reer SSCO istaaga wad khadantihiin maanta nagu garab taagan yihiin waxay muujinaysaa in maanta dagaalkan la nagu hayo iyo xorriyaddan ama halkan maanta aan ku dhex jirno inuu yahay mid xaqa dadkan lagu dulminayo deegaanadoodii iyo cusubkoodii iyo sharafkoodii lagu haysto marka taasna Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed waan uga mahadinaynaa meel kasta oo joogaanba ducadiina maanta waxna tartay wixii kale inta nooga sii badaysaana ka sii wacan dowladda ummadda Soomaaliyeed sida ka soo baxday safiirkeena u fadhiya qaramada midoobay Abuukar Cusmaan Baale waa meeshii cad buu hadalkiisa u qeexay una sheegay maanta waxa ka socda laascaanood inay tahay ummad gumaada oo ka soo horjeeda waxyaalaha lagu talagalay wax ka lid ah bini'aadamada iyo dhaawac loo geysanayo gumaad loo geysanayo ama genocide badhaqo runtii loo geysanayo bulshada Soomaaliyeed ku nool laascaanood iyo nawaaxigeeda marka aad baan taana u soo dhaweynaynaa dowladuna meesha ka taagan tahay waa cadaatay laakiin maanta ummadda maanta joogta ee lagu dilayo laascaanood waa ummadii caalanka Soomaaliya ee maanta kan hoos yaala lagu dilayo dhibaatada uga soo gaadhay marka iyadana waxaan ku booranayaa iyadoo ta garanaysa waxa kaga aadan inay intii kale u dhimana ay ka qayb qaato haday noqoto gurmad gargaara oo degdega iyo haday noqoto xalka kan sidii loo soo afjari lahaa ummadda kale loo badbaadin lahaa kuwa naga soo horjeeda na garaacaya ama hubka nagu soo tuuraya iyo kuwa geesteeda la dhimanayaba waa labaduba dad ummad Soomaaliyeed intana ay hoos yimaadaan calanka Soomaaliyeed madaxweynaha uu yahay mudane Xasan Sheekh Maxamed marka insha Allah isagana Ilaahay ha u fududeeyo hawshu waa ku culus tahay ummadan Ilaahay xaqiisan ba xalka iman karaya Ilaahay kala qaboojiyo waxa jira cunaqabatayn la sheegay in la saaray hoggaanka maamulka Somaliland iyada maxaa warkaysa waan maqlay in ay jiraan dadyo kamida maamulka silsile Somaliland in lagu soo rogay sections ama cunaqabatayn laakiin hadda anu wax official ka soo baxay xagga UN-ta ama hay'adaheeda oo ay ku babashgareeyeen runtii ma arag marka kulay warka kale guud ahaan la sheegay ama baraha bulshada ku jira doo soo dhaweynayna qof kastaana inuu ogaado wixii dulmi ku qaada ama تعديات كسمية آدمها معناتها نول ماشي دونا بهالشوجاني يعني كذا بيصير حسابتن يو إن قف كستابو يحكي جيستي إن لقوا بتحامل دونه محكمة السوكين الدونه. ربنا استقرب.